maxamed cabdikariin cumar maxamed maarshaal waa mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga kulmiye ee uga tartami doona doorashada golaha wakiilada ee la rajaynaya inay dhacdo 2017 maxamed ugu horreyn kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga aad noo soo hortay aad baad u mahadsantihiin sharaf weyn bay tahay waraysigiina iyo inaad la kulmo runtii waxaan jecelahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo arrimo kala duwan oo muddooyinkan ugu dambeeyey kusoo noqnoqonay somalilan waxaanu aad ka mid ahayd sidaanu ognahay musharaxiinta sida weyn uga qayb qaadatay inay habsami socod ku soo dhammaato iyo weliba si qurux badan diiwaangelinta gobolka maroodijeex bal waxaad warbixin naga siisaa ka maxamed ahaan mar haddaad goobjood u ahayd diiwaangelintii ololo weyn noo gashay sida dadku isu diiwaangelinaya meelo badanna martay siday kusoo gabagowday ugu horreynba bismillaahi raxmaan raxiim waxaa runtii sharaf weyn noo ah oon jecelahay madashan inaan uga faa'iidaysto inaan u mahadnaqo dadweynaha jamhuuriyadda somalilan guud ahaan gaar ahaan kuwa gobolka maroodijeex sidii hufnayd ee wanaagsanayd ay uga qayb qaateen diiwaangelinta gobolka maroodijeex diiwaangelinta kolley caqabado fara badan ayaa hor yaallay diiwaangelinta gobolka maroodijeex dadka qaar baa dacaayaad badan runtii u sameeyey waxaa kale oo mataqaanaayey caqaladaha nagala kulmay aan kala kulannay ka mid ahaa dadka oo runtii wacyigelintoodu aada u hoosaysay waxa weye dadka waxaa iskaga qaldanayd kaarhkii dhalashada iyo kaarhkan voter registrationka markaa time bay kii qaadanaysay amba waqti bay qaadanaysay in dadka la fahansiiyo in labada kaadh ay yihiin laba kaadh oo runtii kala duwan qodobka labaad dadka qaar baa iyagu waxayba aaminsanaayeen u fahansanaayeen bayna tahay doorasho markaanu gobollada welibana baadiyaha aanu baxnay waxaad ogaanaysay in dadka qaar ay doorasho moodayaan kadibna ay filayeen in dee ciddii musharaxiinta ahayd iyo ciddii wax doonaysay runtii dee kaambeynada iyo ololaha sidii loo geli jiray aanay arag runtii markaa ay aaminsanaayeen maadaama cidiba aanay u iman sabab allaala sabab ay u codeeyaan baynaanay jirin markaa runtii taasina waxay noqotay inaanu iyadana wacyigelin weyn runtii aanu ka samayno waxaan runtii ku faraxsanahay oon inta dibadaha ku maqan ee aan ogeyn inta halkan iga daawanaysa aan u gudbinayaa fariinta ah in dad gobolka maroodijeexu si weyn isku diiwaangeliyey caqabado kasta iyo wax kasta oo dhacay kabacdi dadku aad bay isku diiwaangeliyeen waxaan fariintan halkan u farayaa gobollada sool iyo sanaag oo runtii diiwaangelintu ay ku harsan tahay waxaad ka ogaan doontaan tirada saxda ah ee isdiiwaangelisay marka natiijada shacabweynaha sharafta badan ee ku dhaqan gobollada sanaag iyo sool ee weli aanay diiwaangelintu ka dhicin waxaan leeyahay aada ugu diyaargarooba diiwaangelintu waa mas-uuliyad qaran waa waajib qaran waxa weeyaan fursad laguu siiyey in aad taliso yacni maanta qofka kaadhkaa qaataa waxa uu go'aamin doonaa noloshiisa waxa uu go'aamin doonaa masiirigii dacaayaadka runtii gobolka maroodijeex ismay diiwaangelinna aad buu isku diiwaangeliyey dadweynaha sharafta badan ee gobolka maroodijeex mar labaadna waan u mahadnaqayaa sida wacan ee wanaagsan ee ay isku diiwaangeliyeen gobolka waxoogaa wacyigelintiisa aad u yaraa hoosaysay laakiin dadaal badan runtii oo ay samaysay komishanka doorashooyinka qaranka xukuumadda iyo runtii xisbiga kulmiya oo runtii aan odhan karo waxa weeyaan halbowlaha ugu weyn buu ka mid ahaa ee abaabulay in dadka wacyigelin waafiya la gaadhsiiyo ayaa runtii suurageliyey inay mataqaanaa gobolka maroodijeex si habsamiya diiwaangelintu uga dhacdo dadweynahana la hubiyo in boqolkiiba boqol ku dhowaad ay isdiiwaangeliyaan xildhibaan maxamed cabdikariin cumar maarshaal waxaanu ka warhaynay maalmihii ugu dambeeyay inaad safar ugu baxday gobolada galbeedka somalilan idinkoo halkaasi ka qaybiya sidhan iyo weliba mucaawinooyin kale yaa id ka gacan sinaysay yay ka timid mucaawinooyinka bulshada loo qaybinay ilaahay baa mahadleh subxaanahu watacaala mar kasta mahadnaqa ilaahay baynu badinana waxa weeyaan dadweynaheenna shacabka masaakiinta ah ee dadka baadiyo runtii aad bay u tabaalaysay abaartii doorkii dhoweytole waxa weeyaan dadka aad bay u naafaysay xoolihii runtii way ka baxeen deegaanada xoolo beeralayda ah waxa weeyaan nimcadii roobabka ee imika da'day dhulkii ayuu ka xidhay time iyo wakhti bay qaadatay in iyaga laftarkoogii ay dhulkii wax ka qodaan maadaama dadka ay tabaalaysnaayeen maadaama xoolahoogii intii u badbaaday ay jilicsan tahayna iibgal u ahayn waxaanu runtii ka shaqaynaynay oonu la kaashannay guddida abaaraha iyo mataqaanaa annaga oo jeebkayga runtii kaga daraynay iyo guddi
dhalinyar ah oo runtii u dhaqdhaqaaqda degmada Faraweyne oo la yiraahdo guddida horumarinta degmada inay isku geeyaan maataqaanaayay beer saacado loogu qodo beeraha dadka jilicdasan ee awoodi waayay inay qotaan. ninka wuxuuga xoolaa u hadheen ee awoodayo inuu qodanayo qoto beerto runtii waxa weeyaan kaasi waxa weeyaan dhiirigelin buu baahan laakiin kuwa tacabka iyo qacan qabashada u baahan waxa weeyaan in waxa weeyaan dadka tabaalaysan ee aadka u jilicdasan runtiina waxa weeyaan 1200 oo qoys oo me 3 saacadood ay runtii guddida horumarinta guddida maataqaanaayay abaaruhu ay ku deeqeen anaguna 200 saacadood ayaan runtii ku darnay oo maataqaanaay qodaal ah oo siirkii qodaalkiga ah sharaf weyn bay runtii taasina ay inoo tahay sanadka waxaynu qaadanaynaa loogada ama halku dhiga ah in aad wax soo saarkeena la kobciyo oo aad wax loo beero taasaan ku dhiirigelinay beeralayda in dhulka aad loo qodo aad loo beero dadku ay wax soo saar badan sameeyaan kadibna kaydsi ay mardhow sameeyaan ay kaga samata bixi karaan abaaraha oo runtii u diyaar garoobaan inagu dhul waxaanu ku naalaa la yiraahdo semi arid desert waxa weeyaan abaartu waa wax soo noqnoqonaysa waa wax markasta macquul ah in dhacdo waxaanu u baahanahay markasta in qorshaheedu uu jiro oo aanu ahaano dad qorshe u yaala oo ka sii tabaabshaysta abaarta kasta oo dhici karta taasaan runtii fariinteeda aanu gaarsiinay dadweynaha beeralayda ah oon runtii waqti la qaadanay oon runtii maataqaanaayay ku noqonay dadku waxa weeyaan maalimo waxa weeyaan dadku waxyaalo gaar ah oo dana gaar oo mucayan ah ay dadku ugu noqnoqdaan una tagaan waxa weeyaan dadka haddaan laga warhayn oo metelkooga dhabta ah aan laga run sheegin oo aan waqti la gelin oo aan loo dhaqdhaqaaqin oo cadeeyada iyo kuleylka aan loo xamilin oo alxafiisyada iyo albaabada loo qaraacin runtii iman mayso in dadkeenu ay la qacan qabto la saacido in runtii dadku ay tacbadaan in dadka dhiirigelin loo sameeyo dadku runtii ay dhiirigelin helaan dhici mayso markaa sharaf weyn bay runtii ay noo ahayd waxaan runtii halkan aan mahadnaq balaadhan uga jeedinayaa maataqaanaayay guddida abaaraha oo runtii aan odhan karo waa guddidii barwaaqada waxa weeyaan maadaama ay tacab badan geliyeen guddidii taakulayn fara badan ay la gaadheen dadkii tabaalaysnaa ee abaaruhu ay waxyeelayeen inay maantana dadkii oo maataqaanaayay roobabkii iyo nimcadii ay kala qayb qaataan dadkii dhiirigeliyaan dadkii siirariyo beer qodaal ay u bilaabaan runtii gobollada Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay waxa weeyaan waa fursad weyn waxa weeyaan waana mid runtii aynu ilaahay uga baryayno inay ilaahay maataqaanaayay ka jazaaysiiyo xildhibaan maxamed cabdikariin waxaad tahay nin dhallinyara waxaanad u sharaxan tahay inaad ka mid noqoto xubnaha golaha baarlamaanka Somaliland ee lagu dooran doono doorashada soo socota waa maxay waxa kugu dhaliyay hanka inta leeg inaad noqoto xildhibaan golaha baarlamaan adoo aad u daayar horta runtii waxa weeyaan markaynu ka hadlayno golo baarlamaan ama golo wakiil oo xubno wakiil ah oo runtii metelaya shacabka waxa weeyaan waa darajada ugu sarreysa ee xeerdejinta qaranka waa cidda mas'uulka ka ah ansixinta xeerarka dalka sidoo kalena waa hagaha ama siyaasadda guud ee qaranka markaynu dhigaal noocaas oo dhigno macno weyn ayay samaynaysaa si kale haddaynu u dhigno wakiiladu ama golo baarlamaan marka laga hadlayo waa caynka dheelitira dowladnimada qaranka sidoo kale waa dabarka qabta hoggaanka fulinta waa sidoo kalena waxa weeyaan jiheeyaha ama hagaha jaangooynta siyaasadda guud ee qaranka sidoo kalena waa afayeenka shacabka markaynu sidaa leenahay waxay u baahan tahay in cidda inagu matalaysa ama cidda baarlamaan aynu dooranna runtii ay ahaato cid hufan oo karti leh oo maanta dalka iyo dadka meel weyn gaarsiin karaysa waxyaalaha runtii aadka aniga igu sii dhiirigeliyay waxaa ka mid ah markaad eegtay xeerka 38aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxa weeyaan golaha baarlamaanka wuxuu siinayaa ama golaha wakiilada guud ahaan waxa weeyaan waa golaha ugu sarreeya ee leh xeer dejinta qaranka iyaga ka mas'uula in jamhuuriyadda Somaliland yeelato dhammaan xeerarka ay u baahantahay dawladda islaamiga sidoo kale waxa weeyaan inay hirgelinta ay hubiyaan inay hirgeliyaan xeerarka dhammaan xeerarka dalka oo dhammaystiran sidoo kalena ay hubiyaan ama xaqiijiyaan cadaaladda inay sugan tahay oo cadaaladda qaranku ay sideedii u shaqaynayso
taasaa keenaysa markaa in maataqaanaa nabadgelyadii iyo isku kalsamaantii shacabku ay timaado. waxaan runtii marag madoon ah in golihii baarlamanka ee maanta jooga runtii aanay maanta legitimate ahayn oo aanay matelin maanta shacabka. maanta annagu waxaan iminka u sharaxanahay golaha baarlamanka. halkaan kaa dhex galo sababtaa sidaan u matelin iyagu yani waxa weeyaan maanta 5 sana la doortay, muddo aad u badan ayay runtii fadhiyeen. waxaan tibaaxayoon tilmaamay marka laga hadlayo wakiil shacab inuu yahay runtii afayaan shacab, inuu runtii yahay caynka ama dabarka qabanaya hoggaanka fulinta, inuu runtii yahay hagaha jaangoynaya siyaasadda guud ee qaranka. intaa midna kuma ku sifoobeen mise kuma sifoobeen waa su'aal runtii dadweynahayna daawanaya hortaala. arrinta labaad ee maantayna hortaala waxa weeyaan markaynu ka hadlayno qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama xeerka 38 farqadiisa ba iyo 3 ay dhigayso xaqiijinta cadaaladda oo udubdhexaad u ah maataqaanaa nabadgelyada guud ee qaranka iyo isku kalsamaanta iyo iskaashiga shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa imanaysa su'aasha ah shacabka maanta caqabadaha haystaa ma qabyaalad baa haysata mise waa cadaalad darro. halkaasay imanaysaa inay timaado su'aasha ah waxaa haysatay ugu weyn waa cadaalad darro. cadaaladda markaynu ka hadlayno waxaa imanaya xeerarkii dalka. golaha wakiiladu waxay leeyihiin guddi hoosaadyo leeyihin. waxa weeyaan jaangoynta siyaasadda guud ee qaranka iyo hirgelinta siyaasadda markaynu ka hadlayno waxaa tibaaxeeda iyo fasirkeedu u imanaya in guddi hoosaadyadaasi ay mas-uul ka yihiin inay tusaale ahaan oo kale ay hay-adaha u adeega bulshada. tusaale waxaad ka soo qaadaa markaad ka hadlayso guddi hoosaadka arrimaha dibadda, mandatekooga ama mas-uuliyaddooda waxa weeyaan inay hubiyaan xeerarka wasaaraddaasi ay leedahay ma dhammaystirayeen. ilaan waxa weeyaan qodob ka mida qodobka dastuurka inay hubiyaan dhammaan xeerarka dalku inay dhammaystireen. markay hubiyaan in xeerka wasaaraddaas ay leedahay xeerarkii caalamiga ah ee looga baahnaa wasaaradda arrimaha dibadeed markay u dhammaystireen inay hubiyaan kabacdi bay imanaysaa dabaqaadi. markaas hadda mas-uuliyaddooda ay shaqaynaysaa ay odhanayaan ma dabaqeen oo ma la implement gareeyey oo ma la dhaqan geliyey sharciyaddii loo baahnaa. halkaa markay tahay waxa weyn waxaa imanaysa inay hubiyaan xeerarkii hoose ee ka mid ahayn operationska oo kale ama adminka oo kale ma la fuliyaa. waxay imanaysaa in la hubiyo tii bulshada oo maataqaan guddi hoosaadka arrimaha bulshada. waxaanu ka hadlaynaa shaqaalaysiintii. xeerarkii shaqaaluhu ma dhammaystiran, xeerka shaqaalaha ma la dabaqaa, sidee dadka loo recruit gareeya loo shaqaalaysiiyaa. waxa weyn guddi hoosaad kastaaba waxa ay ku matalaysaa shacabka in ay hubiso hay-adda u adeegaysa bulshada ee adeeg bixinta ah siday u dhaqangelisay xeerarka iyo inay leedahay xeerarkii. labadaas hadday tays imanaya check and balance kadibna waxay imanayaan markaa xeerarkaasi la xisaabtankooga bay imanayaan. maanta waxaanu ka warhaynaa oo ayna ogeyn golaha wakiiladu ee maanta jooga shacabka kuma matali karaan in ay shaqaalaysiintu heerka maraysa ma oga. heerka maataqaanaaye siyaasadaha guud ee qaranka inta xeer ee hay-adaha adeegyada bixiya ka dhiman ma oga. adeegyada hay-adaha bixinaya ku dabagelkoogii iyo kula xisaabtankoogii ma jirto. waxaa ugu badan waxa weeyaan mar ay u yeedhaan mas-uuliyiinta hay-adaha adeegyada bixiya ee wasiiradu ugu horreeyaan su'aalo dooroo kooban baa la weydiiyaa oo aan ka hadlayn institutionska ay matalaan iyo dhaqangalka siyaasaddeeda oo midhkay u taageen iyagu, laakiin ku kooban keliya xisaabaad yaroo bajada iyo contracts oo isaguna qayb ka mida mas-uuliyadooga. laakiin mas-uuliyadaha la xisaabtan guud halkaas deeta waxaa ka imanaysa in cadaaladdu ay soo dhowaato, in dadka lagu kala hago maataqaanaaye sharciyaddii, in qofka la shaqaalaysiinaya si hufan uu shaqadii u yimaado, in markaa uu shaqeeyo xeerkii dastuurka qaranka ee dhigayay inuu qof kastaba xuquuqdiisa u damaanad qaaday oo uu mas-uuliyaddiisa si buuxda u qaaday. markaa qofku muxuu uga bahan inuu reer dabageliyo waxba kama baahna. qofku markaasay imanaysaa inuu qofku tacab uu la yimaado, markaasay qofku imanaysaa inuu karti la yimaado, markaasay qofku la imanaysaa oo imanaya qofkii inuu aamino sharciga. in labada qof isqabtaa sharci ku kala bixi karaan, in labada qof ay isqabtaa ay maataqaanaayay ay sharci ku kala hagaagi karaan, in qofku uu institutionska wax uga doonan karo uu sharciga la marin karo. markaasuu qofku kalsoonida imanaysaa, markaasuu qofku inuu isku tiirsanaado imanaysaa, markaasuu qofkii self esteemkiisu kordhaya, markaasuu qofku kartidiisu uu doonaya inuu exercise kareeyo, markaasaa dhaqangal sharci iyo dowladnimo hufan ayay noo imanaysaa. laakiin intaa midna ma inagu matalaan golaha wakiilada maanta jooga waa maya weyn.
qodob labaad baa jira maanta baarlamaanka jooga waxaanu ka warhaynaa gobollada dalku baarlamaankoogu inuu maataqaanay constituency kastaaba ay cid maanta soo doorteen maanta dad kasta oo bulsho ah oo xildhibaanada maanta matalaya ay matalayeen maanta ma matalayeen xildhibaano cusub ay doorteen taasina waxay keenaysaa xildhibaanadan anagu ka midka nahay inaanan dhaarsan dhaartu ma naga maqan runtii laakiin sidaasoo tahay imika waxaanu nahay xildhibaano matala bulshada runtii maataqaanaayay ay u adeegayaan oo iyaga oo aan dhaarsanayn oon sharciga la marin maanta maataqaanaay matala una adeegaya shaqadoodiina runtii haya laakiin qolada halkan inoo fadhiday maanta wakiiladu iyagoon ixtiraam badan u hayno iyagoo runtii maataqaanaa intii taagooga aadee dadaalaya laakiinse ma aha sidii loo baahnaa qaranku waxay maanta ku guuldaraysteen iyagoo fadhiya 10 sano iyo dheeraad inay sameeyaan maataqaanaa xeerkii lagu dooran lahaa ee iyaga lagu soo dooran lahaa waana runtii nasiib darro weyn qaranka aad baad mahadsantahay xildhibaan su'aalaha kale aan ku weydiin waxaa ka mid ah ma laga yaabaa in labada doorasho ee wakiilada iyo madaxtooyada la kala qaado sida ay haatan u egtaa markaynu ifafaalaha siyaasiga eegno markaynu eegno odoroska siyaasiga markaynu eegno waaqaca iyo xaqiiqda maataqaanaayay bisaylka shacabkeenu ay maanta u bisil yihiin maataqaanaa doorashooyinka markaynu eegno awooddeena dhaqaale markaynu eegno maataqaanaa mandiqada hareeraha iyo waxay nagu xeeran runtii waxaan filayna karnaa aynu eegi karnaa inay macquul tahay aadna u possible tahay in labada doorasho la kala qaado waxaana aad ugu dhow labada doorasho kala qaadidooda waxyaalo fara badan baa keenaya waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah culayska ay yeelanayso siyaasiyiin maataqaana kaasoo runtii wax yeelayn kara nabadgelyada maadaama dadkeenu aanay u bislayn maadaama heerka literacyga iyo dadka wax akhriska iyo wax qoraalku runtii uu time yahay maadaama dadku aanay weli maataqaan desire-ka ah inay qofku mabaadi iyo principles ay adeegsadaan runtii ay adag tahay waxay runtii nagu keenaysaa buuq siyaasiya waxay nagu keenaysaa inay wax naga waxyeelayso nabadgelyada waana runtii dood faalida oo macquul ah markay timaado labada doorasho ma la israacin karaa mise waxay ku macquul tahay in la kala qaado waa dood runtii miiska saaran oo runtii laga doodi karo waan gartay dadka ma la odhan kara way u bisil yihiin tusaale ahaan inay u codayaan adigoo xisbigii kulmiye ka sharaxan iyo weliba musharax madaxweyne oo xisbi kale ka sharaxan dadkeena waxaad badanka naqaanaa in ay musharaxa madaxweyne iyo xildhibaanka jecelina meel ka wada doortaan bisil intee leeg bay shacbiga somalilan ka aragtid ahaan maxamed maarshaal aad filaysaa inay u bisil yihiin inay u kala codayaan xildhibaan ku jira xisbi iyo musharax xisbi kale ku jira runtii taasi waxa weeyaan waa tiro kooban inta sidaa samayn karta waana inta runtii bisil aqoonta iyo runtii qoraalka iyo akhriska iyo waaqaca runtii la socota laakiin bulshadeenna inta badani way ku adagtay arrintaasi kow in la fahansiiya adkaanaysa markii kambaynska tusaalaan cidda ay rabaan ee xisbi ku jirta ee weliba musharax ah weliba baarlamaana ee ku dhex jira intaas oo musharax ka soo dhex saaristooda haddana intay warqad kala qaataan haddana madaxweynaha oo codeyntiisu runtii time bay qaadanaysa laakiin waxaaba ka sii weyn baa jira xagga bisaylka ummadda waxaan qabaa inta badan inaanay weli bislayn una baahnanayso wacyigelin fara badan maataqaanaaye kharash fara badan kos fara badan iyo nidaam badan laakiin arrinta ka sii muhiimsan waxa weeyaan dal ahaan markaynu nahay aynu ognahay dal mandaqada uu ku yaallaa runtii ay tahay mandaqad inta badan hareeraha ka gubanaysa markayd ognahay buuq siyaasadeedka inagu yimaada iyo inagoo wax ka baranayna golihii deegaanka buuqii inagu yimid dalku ma qaadi kartaabaa imanaysa su-aasha ah intaas oo xildhibaan baarlamaan oo min $100,000 ka baxday iyo xisbi 3 xisbi oo 2 xisbi ay waayeen musharaxiintii madaxweynayaashu oo ku darso oo madaxweynaha maataqaanaa maanta qaranka ee joogaana aanu ahayn musharaxii tartamayay ee 3 musharax madaxweyneba ay bannaanka taagan yihiin intaasoo iyaguna xildhibaano dibadda taagan qaranku maxaad u malaynaysaa intee in leegoo maataqaanaa ma qaadi karaa su-aashaas waa su-aal runtii u baahan in maskaxda in badan lagu daaliyo in runtii dadku si aan caadifadaysnayn uga fikiraan anugu ka baarlama ahaan markaan ka hadlayno doorashada dee nin kastaaba waxaanu jecel lahay waxa weeyaan dee tii baarlamaanka noo soo horraysaanu jecel lahay oonu runtii sharciyaddii iyo hufnaantii iyo maataqaanaayey dhaqangelinta xeerarkii dalku inay yimaadaan inay taabagelinta
hanaan dowladnimo oo hufan aynu helo iyo in soo kale xaqiijinta taabagalka cadaaladda dalka in inahaaba la hubiyo runtii waa waxyaalaha aynu taagannahay in runtii ka baarlamaanana nusleynay waxbaad ka bedeli kartaan oo runtii nusleynay waqti baad huri kartaan oo waqti baad u bixin kartaan oo waad ma taqaanaa ay tafaxiidan kartaan habeen iyo maalin oo goclo orod baad u geli kartaan laakiin waxaanu mar walba tallaabsanaynaa duruufta taagan maanta xeerkii baarlamaanku ma dhammaystirna xilliga aynu marayno ee doorasho lagu geli lahaa arrin baa ka taagan sidoo kale waxaa jira opinion poll la sameeyey oo xog ururina oo ilaa alaan iyadiina aan ma taqaanaayay warbixinteedii guddidu waxaan jeedaa guddidii markaa baarlamaankii ka shaqaynaysay iyo hay-adihii la shaqaynayna aanay soo bandhigin markaa taa laftarkeeduna waqti ayay noqonaysaa ay qaadanaysaa iyada laftarkeedu markaa waxaan qabaa runtii duruufo badan oo jira oo waaqaca marka la eego waxaa macquul noqon karta in labada doorasho la kala qaado laakiin doorashada soo horeynaysa waa mid runtii u taalla markaa komishanka doorashooyinka golayaasha kala duwan ee qaranka iyo xisbiyada ayuu weli doonta runtii gabagabadii baan soo gaadhay maxamed cabdikariin cumar maxamed maarshaal waa maxay fariinta ugu dambaysa aad u dirayso bulshada ku daawanaysaa runtii bulshada waxaan farayaa ee ugu muhiimsan waxa weeyaan nabadgelyada maanta qarankeenu uu waxa weeyaan tallaabo kastoo horumar oo aynu qaadnay iyo tallaabo kasta iyo hiig gabagabadii maxamed cabdikariin cumar maxamed maarshaal ayaynu soo gaadhnay waa maxay fariinta aad u dirayso bulshada ku daawanaysaa shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan runtii mataqaanaa aan ku hambalyaynayaa sida wacan ee quruxda badan ee runtii gobolladii ay ka dhacday diiwaangelinta qaranku ay mataqaanaa uga soo qayb qaateen waxaan runtii halkan ka hambalyaynayaa dhallinyarada ku ciyaaraya magaca jamhuuriyadda somalilan ee runtii ka qayb galay tartanka dowladaha aan la aqoonsan ee abkhaasiya oon runtii leeyahay waxa weeyaan guul weyn oo taariikhiya in calanka jamhuuriyadda somalilan laga dhex taago wadamo fara badan oo runtii aan la aqoonsan sidoo kalena magaceenna ay dhallinyaradaasi nagu matalaan ay ku ciyaaraan waa geesiyaal waxaan leeyahay dhallinyarada aadka kubadda u daawata warta dadka mataqaanaa naadiyada kaleba runtii aad baad u xiisaysaan runtii magacaantooda iyo aqoon fara badan baad u kala leedihiin waxa weeyaan maanta in magaceenna matalaya ee sharafteenii huwan ha la soo dhoweeyo imaatinkooga si weyn haynuugu kacno ha la dhiirigeliyo waxaana leeyahay iyaga iyo runtii ciddii ka shaqaysay ee ugu horrayso somalilan football association iyo cid kasta oo taakulaysayba waxa weeyaan dalka waxa weyn abaal weyn ayuu dalku mataqaanaayay laydin hayaa shacabku idin hayaa dalkuna idin hayaan guul weynna waad inoo soo hoyseen hambalyo ayaan leeyahay shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan aad buu mahadsan maxamed cabdikariin cumar maxamed maarshaal oo ka mid ah murashaxiinta jagada baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan mar kale maxamed aad baan kaaga mahadnaq waqtiga qaaliga